sanadkan aan ku jirno ma qorsheynaysaa inaad guursatid qorshaha ma kamid tahay sanadkan hadda sideedaada mareynaa safaro badan ayaad gashay marka Kenya waxay noqotay meeshii aad dhihi karaa ugu badan aad joogtid marka maxaa sababa dhihi karaa السلام عليكم أصحابتي كحرن مصباح وشيال ميل بجبتها وانا سلامنا وانا مركا سو لابني عاوية إلي جوغا مرتي علوس درسلي سو دو كل جوغا او كل channelkaaga wala dadka badanku waxay oran jireen maadaama ay qurux ku dhuliyay musbax kasoo muuqdan channelkeeda koorma ay Drisley musbax kasoo muuqanaya marka maanta laga soo muuqday maanta waa lishayaa waan ku faraxsanahay inaa kasoo muuqatay soo dhow waa ku leeyahay waan dhowahay asxaabtaada waa salaama xayile waa idin salaamay diyaar waaye marka waxa waaye maanta waxa ayaa su'aalo diyaar ma tahay diyaar ani su'aal aad u jecel waxa badan weydiin ha wallahi ama hada ka jawaabi weydaa hadda ay ka dhacda ma yaanu waa jawaabay badana okay diyaar waaye waxa sameeynaa su'aalaha galayna horta badana dadku waxay ku yaqaanaan Drisley Cabdi marka waxa rabaa magacaaga dhameystiran inaan oo sheegtid magacaaga dhameystiran waa Cabdirasaaq Cabdi Miigag Cabdi Cabdallah wala doon dhalay Cabdigaas ma sha Allah hay ku dhalatay loo raacay magaalada Jigjiga gaar ahaan Laantaawada oo si walaahi ku xisaabaye a'uudu billahi ya madama qurbahan kugu bartay ninkaas ku xisaabaye xaggaas Jigjiga ku dhashay Laantaawada waliba dadka Laantaawada loo salaama meel xaggaas ma sha Allah okay waxa u gudbeynaa su'aasha labaad inaad aan noqoto dhibaato ka soo martay horta markaad aan noqonaysid dhibaato dadku way ka maraan laakiin aanu isma oran karo ama ma oran karo maxaa la dhibaata ka soo martay sababtoo ah xilliga aan anagu maraa social media soo galinay ay dad aan wax weydiino ama dad aan wax kala tashano mina jirin marka video soo dhigi jirnay haday 5,000 ama 2,000 daawato alxamdulillah intaas ku daawatay waa farxad wallahi laakiin imika way ka duwan tahay maraa imika dad badan aan dhibaato kala kulmo dhan waxa waa misla social media laakiin waaga 5,000 7,000 waa lagu farxi jiray maraa 2,000 oo qof aan daawatay waa lagu farxi jiraa aad iyo aad okay waxa sameynta saddexaad u gudbeynaa sanadkan aan ku jirno ma qorsheynaysaa inaad guursatid qorshaha ma kamid tahay sanadkan hadda sanadkan bishii sideedaad ku jirnaa Soomaa mise bishii waxaan ku jirnaa sagaalaad ku jirnaa May sanadkan May qorshaha lagama yaabo inaad guursado wala way dhamaatay wadaadii tawran ku tiraan la afar bilood aad jirta wax walba isku bedeli karaan ma ogtahay lacag way isbedeli karaan wax laakiin maskaxdeedu kuma jirto saddex bilood soo socda guurso maskaxdeedu kuma jirto aad iyo aad waa arin fiican okay waxa su'aasha afraad ugu gudbeynaa su'aalaha kugu soo dhaweynaya marka lagu qaado insha Allah oo diyaar okay yaa kugu dhiirigeliyay inaad YouTube furato qof kugu dhiirigeliyay familkaaga ha ahaado asxaabtaada ma jiraan horta markaan social media anagu soo gelinay haddii social media lagu arko qof waalan baa loogu arkayba soo dadka qof keligii meel ka dhaxalayo keligii wax meel soo duubayo wax sheegay qof waalan baa loo haystay marka qof ugu dhiirigelinay xilliga wax meena jirin waa lagu leeyahay waan leeyahay dadkan maxaa ka qaldanayo aniga kuwa wallahi waxa samir loo jeedo maxaa video duuba saamka maxaa ku dhibanay maxaa wax la duubay marka wallahi in la leeyahay mooyaane dhiirigelin jiray ma jirin wallahi bilaa nolol adag ka soo martay imika qof walba qof baa dhiirigeliyo kula wax baa laga sameeyaa saas sameeyo horbad gaari doonta laakiin xilliga maxaa ku dhibay walaa qaali ya maxaa ku dhibayo waxaan kaamirada shida kaliya isku la hadlay maxaa abadalka ka reebay adiga iska shaqaysaa lagu jiray marka way ka duwada xilliga aad duwana laakiin si badana waxa jira dad comment ku soo qoray oo oranay video part 2 soo sameey ama waxa keenay marka dadkaas aad dhiirigelin la oran karaa laakiin qof toos kugu imaanayo koranaya wallahi wax fiican baa sameeyay hore soo ma jiro okay waayahay waxa u gudbeynaa su'aasha ku xigta waxa ma jiraa go'aan aad qaadatay oo ka shalaysay noloshaada go'aan aan qaatay oo ka shalay noloshaada hal iyo labo maxaa anigu sheegay aan qaato oo ka shalay waa inaan xogaa u yara fikiraa diyaar ah timka qaado
aan qaatay haddii maxaad la samaysay go-aankaas hadda buu shalaysaa dhexday hadda sidoo kale tusaalahaan caanimo kale maxaa caanimo ina qabo kale one day ma ka shalaysay ha okay may waxaan ka shalayaa dadka qaar hadda social media ku jira maxaa wax uga samayn jirtay dadka qaar maxaa fiidiyaasho yes oo bixinaysay sababtoo waxaan jeclaan lahaa anuu reaction ka bixin heerkay taagnaan lahayn naako markaan hadda iyaga arkay mana waxaan jeclaan lahaa reaction bil heerkay taagnaan lahayn aragti waxaan jeclaan lahaa ima labay dhacday taasi jeclaan lahaa okay waa yahay waxyaalaha ka xanaajiya adii diris ahaan maxaa kamid ah hal iyo laba bal nooga sheeg qofkoo isla weyn okay maraa dadka markaa arko isla yara weyn ana islaada isaga iskala sii weyno markaa dadka isla weyn aad baa u nacay waay sababtoo ah isla weynidu inay faa'iido lahay ma ogaay marka anugu mar aan isyara dareemay oon ka shalayaa jirton markaan 100,000 subscribers gaaray waxaan aaminsanaa qof ani iga horeeya ama maanta iga fiican inuuna jirin صح si fiican xilligaa 100,000 subscribers sanadee 1 milyan oo dhigmatay wax afka loo dhigan karay miinahayn marka xilligaas ayaan xasuustaa sidaan ahaa ama waxaan aaminsanaa markaan arkay minka qof kibirsan aniga dib baa isku eega xasiraa xilligaagii uu maraya ama walaad wadada soo maray laakiin wuxuu ogeyn kibirku inuu faa'iido lahayn aad iyo aad okay waxa ku jirnaa su'aalihii ugu dambeeyay su'aasha ku xigta waxa waaye gabadha aad guursanaysid mustaqbalka inaad la wadaagtid sifo sidee ah ku dooran lahayd bal 1 ilaa 3 noo sheeg waxa ku dooran lahaa qof macnaha jecel wax aan samaynayo oo mana igu dhiirigelinaysa ugu taageersan sababtoo waxa adduunka ugu xun waxaad adigu jeceshahay oo qofka aad qabtiin ama xiriir idinka dhexeeyo ama adirtu dhibsanayo marka waxay meesha noqonaysaa ama waxaan iska dhaaf dee ama anigay dhaafay noqonaysaa marka waxaan aad u jecelahay qofku inuu macnaha aad ii taageero macnaha horumarkayga jecel yahay waxaa kaloo jecelahay qofku inuu qof wax garada yahay macnaha aan wax loo sharaxayn wax fahmayo su'aalaha marka social media ku jirta hadal badan ka baxsan kara waxa badan iska oran karta adoo gabar raashiga bixina ama gabar wax ka sheegayso alla gabar maxay iska oran karta marka qofkaas waa in fahmaa mana ogaada waxaan social media yahay si fiican maalaade waxaan si sax ah uga wadin dabeecaduna iska fiican tahay dabeecad wanaagsan intaas waxyaabo badan ay jireen laakiin adiga waxyaabo inta muhiimada ah intaas macnaha dadka qaar waxaan odaa diinta muulaada macnaha kullu sakana qof diinteena haysto maade qof diinteena haysto macnaha guursanaya Soomaa macnaha taas ajnabi ku qorsheysna no me kuma jiraaga okay diyaar waayo waxa su'aasha mareynaa sideedaad mareynaa safaro badan ayaad gashay marka Kenya waxay noqotay meeshii aad dhihi karaa ugu badan aad joogtid marka maxaa sabab dhihi karaa horta meesha aad joogtid haddii aad ku raagtid macnaheedu waxay tahay meeshaad ka heshay aad iyo haddii meesha ku tuftana macnaheedu waxay tahay meesha maadaama degdeg baa uga laabanaysaa sababtoo ah kamaad helin baa ama dad kaa noqoto ama dhul kaa noqoto wax walba ahaado si fiican marka Nairobi waa meel horta iska dad badan ninkastii joogaan dad fiican iyo dad xunbaba laakiin waa meel lagu noolaan karayo haddaad dantaada garanaysid markaa sababtaas weyn dantayda ay dhigtay maanaha waa meel aan isleeyahay waa meel aad ku noolaan kartaa maanaha marka Africa la eego gurigaaga labada camal ku noqotay guriga labada jijiga laakiin ka saxaabay noqotay saddexaad jijiga maanaha meel aan ka doorsanay ma jirtay no laakiin meeshan waa meel lagu noolaan karayo maanaha faa'iidooyin badan leh marka hadda Africa mar joogaysid meel Europe noo yar eeg baa fiican iska jirta marka meeshan maadaama tahay meel yar international wax walba ka helaysid wax walba dhib yihiin xagga malaha sababta u joogtaa sabab kale ma jiraan okay waa yahay barnaamijku waa su'aasha ugu dambaysa mareynaa soo yaraysa soo ayo email wax badan aad jeclaan leeyahay anigana waxaan wiil ka xisho ka waran I love su'aalo fiisinka waxaan dhahay maanta ugu horeysa maadaama tahay ka yar xisho waa isdhahay marka next time ku balansanaya insha Allah okay su'aasha ugu dambaysa mareynaa 1 milyan maadaama wax yar kaaga dhiman tahay sida looda ogyahay oo indhaha lagu haayo maxaa waa qorshaha markaa gaartid
ku qorshaysan inaad markaa gaaro 1 million inaad samaysid yani qorshaha maxaa kamid horta qof walba target buu leeyahay markii ugu horeysay 10,000 subscribers gaadhay waxaan islaa 10,000 markaa gaadhay maxaa samayn doontaa markaan 100,000 gaadhay waxaan islaa 100,000 markaa gaadhay maxaa samayn doontaa maalin isku ka dhiibi manaha waa lambarka horta lambarka dadka qaar manaha dib ay jirtay dadku arkayn laakiin lambarku dadka uu ka walaa sababtoo ah maanta hadaad 1 million la gaadho 2 million baa ku sugaysaa laba hadaad gaadhina 3 hadaad gaadhina 4 marka lambar wax dhamaanay ma okay laakiinse waxaan rajaynayaa inaan sameeyo waxay dadku jecel yihiin manaha oo manaha de wixii manaha aanu oran ma waxba bedelaya waxaad daawo jirteen unbaa sonkor leedigu soo dariyo manaha si macnaheedu ha si aad iyo aad marka laakiin ma malaynaya ma habwan mini marka la gaaro in ay manaha faa'iido kale kugu kordhinayso manaha wax kale helisid muhiimad waxa weeyaan magaca meesha ku qormaysa wan taasun baa manaha iska yara qurux badan say qoranta ma laakiin faa'iido kale manaha waxa ka sugaa inaad dhaxdi waxa waaye dalxiisa u socda Turkiya u socda waa kana Malaysia aadiro ka wulmiin gaaro meel ina aadamo ama xaflad weyn aad dhigan rabtaa ya meel ina aadamo rabo laakiin adu insha Allah wax fiican sameyn doona saas ma qurux badan wala arki doona kullaa insha Allah may diyaar waaye waa sugeena haddana hambaliyaa kusii leenahay kusii gudbinaynaa marka asxaabay barnaamijka intaynu nugay anigu su'aal kuma weydiin karno may xaq u leedahay oo i weydiin kartaa okay diyaar ah soo sax okay aan markii ugu horeysay ee ku arkay waxay ahayd waa hore oo mana riwaayad baan ku dhaarkay aad iyo aad adu markii ugu horeysay arkay saaqay waa aragtay mana marka halkeed waa aragtay kulay real life kama sheekeen waxa ka la xagee daawashadii ugu horeysay xagee walahi ani YouTube ka waa kugu arki jiray laakiin waxa mid ugu horeysay si fiican oo arko waxa mara reaction ay bixinaysa video aan leeyahay videogaas marka waa street bal ninkii maanta adu soo soo qaada ado bala irifaya okay wala markaas si fiican waxa waaye ugu arkay intaantay laakiin YouTube ka ka daawan jiray ugu dambeyn waa kana real life isku arkay adduunyada saaska waa adduunyada saaska waxa waa dil noolyahay waxa waa is arkaya sarka boqolkiiba boqol marka waa kaas su'aalka ma haysaa mimi xabada ana waxa iska jecel qofka halkii ugu arkay ogaado ana meesha ahayd xilligii arkay waxyaabahaas iska jecelahay sababtoo ah adu iska fiican tahay meesha lagu arkay lagu sheego yaa markii ugu horeysay xagga ku arkay aad iyo aad TikTok iyo waxa dadka qaar baa anu YouTuber iska oranay inuu anu TikTok ban ku arkay marka waxa jira maadaama dadka qaar TikTok ku arki karaan wafan kala wax kale u sheegi karaa waxa uu marka waa guul hadaa igu aragtay waa reaction ka waxa si fiican marka asxaabay barnaamijka inta nugu egyahay waxaan iga codsanaynaa subscribe noo saartaan like intaba idea dhanka ilaawna waa muhiim maraha like kada saartid comment kan iskaga darso hal comment bixisina subscribe iskaga darso khayr Allah marka aad buu mahadsanyihiin bye bye asxaabtaada waa salaam insha Allah waxaan rajeynayaa videogan mid lamida ama mid u eeg mid ka duwan bayna baa kula soo fariistay insha Allah ama adigu baad soo fariistay diyaar waa insha Allah sugeena marka asxaabtaada salaam bye